السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا قيبتي صدحاد. برنامج كي نقوم قدرنا إياه تاي أدقو. برنامج كاسو إنو كي هالين التاريخ دا الصومالي دا. بربلو ولاي برلمات. كسر دوادا برنامج كا. Diyaarayo madigay diyaarayo madigay diyaarayo cagta saare diyaarayo caalimiintiyo diyaarayo caadil kowsahal diyaarayo caadil kowsahal diyaarayo hormayna timid diyaarayo way hor leedahay diyaarayo hawsha koradhiyo diyaarayo habas kuba wari diyaarayo habas kuba wari diyaarayo madigay diyaarayo shifa ku absar diyaarayo shifa ku absar diyaarayo washar ku male diyaarayo washar ku male diyaarayo madigay فضلا هدان نوغو عصوب تاي سبسكرايب نو سار سينا شير قريو لو وداق أصحابتا سي نوغو سو بيران una bartaan taariikhdoodii hore halka ay ka yimaadeen cidda ay isir wadaag yihiin iyo cidda keentay geeska Afrika. Luqadda Kushitigu waa luqad aad u fac weyn. Luqaddaas oo ay ku hadlaan qoomiyadaha Soomaalida, Xanfarta, Oromada, Saahada, Eritreyaanka, Beejada degan dalka Suudaan, xaruntii Faraaciniintii hore ilaa iyo hadda ee waqooyiga dalka Suudaan iyo qabiilo kale oo badan. waana luqad fac weyn oo ay walaalayihiin luqadda kale oo la dhaho Samatiga. waana luqad fac weyn oo ay walaalayihiin luqadda kale ee Samatiga. labada luqadood oo la isku yiraahdo Aso-Asaatig taasoo micnaheedu yahay Xamato Samatig oo loola jeedo luqaddii Xam iyo Sam ee ilma Nuux oo isku darsantay. luqadda Samatigana waxa ku hadla dalalka waqooyiga Afrika iyo wadamada Carabta. luqadda Samatigana waxa bariga Afrika uga hadla Tigreega iyo Amxaarada. luqadda Samatigu waa Carabigii hore oo laga hadli jiray bariga ama ku abtirsata Sam oo Carab ku abtirsada. haddaba luqadda Kushitigu waa luqad fac weyn oo ay walaalayihiin luqadda Samatiga. Sam oo inuu Nuux iyo Xam oo inuu Nuux ahaa ayaa labadooda luqadood isku darsameen. wayna isku dhex darsameen waxana la isugu yaqaan Afro-Asaatig. luqadda Afro-Asaatig la yiraahdo ayaa waxa ay ka kooban tahay Samatig, Berber, Tawraak iyo kuwo kale oo yaryar. balse labada ugu waaweyn waxay yihiin Kushitiga iyo Samatiga. waxaana la isku yiraahdaa Afro-Asaatig. marka luqadda afka Soomaaliga waa luqadda Kushitiga oo ka soo jeeda boqortooyadii hore ee Kush. ilaa iyo haddana waxa ku hadla qabiilada tan dega geeska Afrika aan ka ahayn Amxaarada iyo Eritreyaanka oo ku hadla luqadda Samatiga. DNA-da dadka bini'aadamka ah waxa ay leeyihiin guruubo iyo asal iyo isir ay ka soo kala jeedaan dadka Soomaalida iyo dhammaan qabiilada dega geeska Afrika sida Booranta Kenya degan, Oromada Itoobiya degan, Sidaamaha oo sidoo kale Itoobiya degan, Xanfarta iyo dhammaan qabiilada ku hadla afka Kushitiga iyo luqadda Samatiga labaduba dhiigay wadaagaan. dhammaan intii aanu ka soo hadalnay oo luqadaha wadaagta dhiigana waa ay wadaagaan. haddaba markii DNA-da la baaray ayaa waxa soo baxaysa oo maanta cilmiga iyo tiknoolajiga la gaaray ay fududeysay dhammaan qabiilada isugu dhow ee degan geeska Afrika sida Mauritania iyo Morocco, Indonesia iyo Algeria, Liibiya iyo Masar, Suudaan, Soomaaliya, Itoobiya iyo in ka badan intuba ay wadaagaan dhiiga. DNA-du waxa ay leedahay in 10,000 oo sano dib loo raaci karo oo la ogaan karo qofka uu ka soo farcamay iyo asalkiisu halka uu ka yimid markiisii hore ama sida ay dadka dunida maanta jooga ay isugu kala dhow yihiin. DNA-da sidoo kale marka la joogo waxa lagu ogaan karaa qofkan inuu ka yimid naag ama nin uu ka soo farcamay sida chromosome marka loo eegayo. waxaana loo qaybiyaa Y iyo XY oo haddii uu ninku Y ka farcamay ay tahay taasi inuu ninka farcamay qofkaasi asalkiisu. waxaa kale ogaanaysaa xaqiiqda kaliya oo maanta la hayo inay tahay DNA-da taas oo lagu kala saari karo dhammaan dadyoga ku nool koonkan aynu joogno si loo ogaado asalkoodii midba
ama dowladba meesha ay kasoo jeeday. Haddaba markii la baaray dadka Soomaalida ah dhiigooda iyo dhammaan qabiilada la degan Geeska Afrika, kuwaas oo ku kala hadla Kushitiga iyo Samatiga, ayaa ay dadka isugu dhownahay Masar iyo wadanka la dhaho Suudaan, xataa Israa'iil, kaas oo markii loo eego groupiska aynu wada qaadano M72 oo haddana DNA-du waxay ku tusaysaa maadaa ka yimi mise isaga ka yimi. Haddaba waxaa arki kartaa maanta qof ama madow ahaa ama caddaan ahaa oo saddexdiisa awoowa ka hor laga yaabo inuu qofkaasi caddaanba ka soo jeeday, maantana laga yaabo inuu yahay qof madow dabcan, taas oo ay ku caddaynayso in aanay DNA-du marnaba isbedelin hadduu qofku uu muddo ka soo wareego iyo haddii uu waqtigaa uu joogo uu kalarkiisu uu ku soo sinmo, taasoo laga yaabo inuu qofka bini'aadamka midabka ama dhaqanku uu isbedelo laakiin aanay marnaba DNA-diisu isbedelin. Haddaba markii dhiigga laga qaado Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo Anfarta, kuwaasoo degan Geeska Afrika ama xataa qabiilada degan Geeska Afrika oo dhan, waxaad ogaanaysaa inay aad qaraabo hoose u yihiin wadamada Suudaan iyo Masar iyo Itoobiya iyo Soomaaliya. Marka DNA-du waxay ku tusaysaa qofba qofku ka sii ahaa iyo qofba qofku uga dhow yahay. Haddii aad maanta dhiiggaaga baarto, fadlan la soco qaybta afraad oo aad u xiiso badan, siina sheer gareey oo la wadaaga asxaabtaada. calankaanu sugaynayeen sangiisaynow seerma weydo hilaacdayow sagal maanta daruurado sigadiinaga mudhayow saqdhahaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii u ekaaye xidhina mid la siiyayow saaxirkii kala guushaye sareeyo munusqaaw aan siduu yahay eegno ka nasiibkana saare shaahidiinta islaamkoe subxisaa jimcayaashiyo siryaanta iyo haweenku calankaysa hadjeenow idina kaanayna siinine saatir noogu yabahayow saaxirkii kala guuree sareeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegno ka nasiibkana saare